Tani waxay dhacday markaan ahaa 11 jir. Aniga iyo labadeeda saaxiibo waxaan ahayn rag. Waxaan ku dabaalaneynay saaxiibkeena gurigiisa meesha gadaale. Habeen ku dhowaad 10kii habeenimo ama 4 saac saaxiibkeyga gurigaas oo xuduud la lahaa dugsiga dhexe ee hantida. Dugsigaas oo ku wareegsanaa xaytaabka xaryaha ama silsiladda. Saan ku dabaalanayay waxaan fiiray gadaal waxaan arkay nin dheer kuna labisan dhar madow iyo koofiyada baseboolka. Wuuna iska istaagsanaa sida hor. Wuuna iska kay daawanayay sababuna ogeed maalin lahayn. Waxaan u malaynayay inuu ah nin cajiib ah. Waxaan u yeeray saaxiibkeyga. Labadayna waxaan fiirinay gadaal laakiin asaga wuxuu bilaabay qayle iyo inuu ka baxo barkada. Saaxiibkoodii ayaa toosiyay aniguna waxaan bilaabay inaan ka baxo barkada sida ugu dhaqsiyaha badan. Marba mid ayaa isticmaalayay jaranjarada. Ninku waan dambeeyay waxaan sugay jaranjarada waxaan fiiriyay gadaal mise ninku wuxuu soo tafayaa siliga wuxuuna isticmaalayay weliba xawaarihiisa kan ugu sareeya. Waxaan soo galnay guriga waxaan xirnay albaabka waan safuuraynay. Wuxuu ahaa albaabka gadaale kaasoo ahaa 80% muraayad nadiif ah. Halkaas ayuu istaagsanaa oo uuna daawanayay. Waan qaylinaynay waxaan ogaaday inuu haysto usha baseboolka. Waan orodnay si aan ugu dhuumano kursiga qolka fadhiga. Wuxuuna isku dayay inuu soo furo albaabka laakiin nasiib wanaag muusan isticmaalin ushaas si ugu jabiyo muraayadda taasoo u noqon lahayd mid fudud. Wuu tagay saaxiibkeyna wuxuu u orday si uu u waco aabihiis. Saaxiibkay aabihiis wuxuu u sheegay inuu gurigu soo dhow yahay oo aanan banaanka u bixin. TV ayaan daaranay si aan isku dejino si lama filaan ah. Saacadda sabuuradka ayaa dhawaaqday. Waxaan ahaa 12 jir wadada keliya ee furan markaas waxay ahayd keliya inaan qayliyo. Saaxiibkay aabihiis ayaa guriga yimid markay waxaan dhacayeen. Qorigiisii ayuu soo qaatay wuxuuna raadinayay qaswadihii laakiin cidna muusan arkin. Habeenkii wixii ka dambeeyay weli waan ku dabaalaneynay marnaba lamaanan kulmin ninkii waanaa. Waxaan ahay 25 jir hataa ma aqaan sababta aan u wicin askarta ama saaxiibkay aabihiis uusan u wicin askarta.